Kusoo dhawaaw qurux dumar please haddaan nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkane on ka dhigo bismillaah asxaabteena qaaliga soo dhawaada kusoo dhawaada channelkeena qurux dumar channel insha Allah maanta waxay ka shidan tahay qaybta qurxinta ayaa diiradda noo saaran mar walba waxaan filayaa inaan idin keeno ciwaan muhiim ah oon isleeyahay waa laga wada faa'iidi doonaa insha Allah ciwaankeena maanta diiradda waxaa ku saareynaa sida ugu fudud ee daamanka bicbic looga dhigi karo ama wajiga nabraha looga baabi'in karo wajigaagana uga dhigan karto mid dhalaal ah insha Allah ciwaankaas ayaa diiradda noo saaran wajiga waxaa muhiim ah marka hore in lagu dadaalo oo la daryeelo sababtu waxay tahay qofka meesha ugu horeyso ee qofka laga arkayo waa wajiga marka qofka wajigiisa haduu lagu qanco ayaa jirkiisa kan lagu qancaa marka qofka wajigiisa inuu ku dadaalo inuu daryeelo quruxdiisa waa meesha ugu horeyso wajiga insha Allah muhiim waaye hadaba stepkan ila fiiri ila faroogareey sidaan kuugu sheegana u qaado insha Allah waxyaalaha loo baahan yahay si wajiga looga dhigo bicbic nabraha looga baabi'iyo looga dhigo wajigaaga mid dhalaal ah waa laba shay oo kaliya waa wax iska fudud waa wax qof walba uu jikadiisa ka heli karo midda koowaad waxa waaye baradho midda labaadna waxa waaye caano booro hadaba qaabkee u samaysan karnaa sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin qaab iyo qodobo iyo process loo raaco qaabka loo sameynayo waa qaab iska fudud marka hore waxa u baahan tahay baradhada inaad soo fiiqato markaad soo fiiqato qiyaastii hal xabo baradho ayaa hal qof ku filan ama laba qof xataa way isla isticmaali karaan marka hal xabo baradho markaad soo fiiqato nadiifi dhaq markaa dhaqdo biyo dabka saar markay kululaadaan baradhada dhexgeli baradhada waa inay si fiican u bislaataa oo cunuga ilka lahayn xataa uu cuni karaa baradho waxaa la rabaa biseel zaid inay noqoto okay markay baradhada zaid u bislaato waa ka degsanaysaa markaa ka degsato waxaa weel ku qasanaysaa kas yar oo caano booro ah markaa qasato qaandeer ayaa soo qaadanaysaa baradhada waa jijibinaysaa markaad jijibiso baradhada waxaad ku daraysaa caanihii aa qasatay si fiican aad isku walaaqaysaa xaqiiqatan baradhada markii dabka la saaro oo zaid ay u bislaato oo la jijibiyo ayada dhan waxay noqonaysaa budo oo kale yacni waxa kuuskuus dhan yuu kasoo muuqan markaas noqoto waxaa inaad ku dartaa caano booraha markaa ku darsato isku walaaq iyo biyo kaa noqonin adeeg zaidna kaa noqonin adi wax dhexdhexaad oo marsan karto oona kaa dardareynayn kaana daadanayn waa inay noqdaan markay sidaas noqdaan wajigaaga biyo caadi kusoo dhaq marka hore biyo caadi markaa kusoo dhaqdo wajiga soo angaji marka iskiis ha u angag yacni mara iyo waxba ha ku tirtirin wajiga ama tiish iyo waxaana ku tirin wajiga iskiis ha u angago markuu wajiga iskiis u angago soo qaado alaabtii baradhadii iyo caano boori soo qaado wajigaaga mari waxaana fiican gacantaada inaadan ku marinin oo bahalada wajiga lagu marsado wax ama suuf xataa hadaa wax kale heli karin inaad ku marsato oo kadibna aad iska tuurto saas ayaa fadli badan saas ayaa fiican sababtoo ee mar walba gacmahaaga waxay leeyihiin bacteria mar walba waxay leeyihiin gacmahaaga jermis qofka ka maarmi karin oo wax kale ku marsada laheena insha Allah wuu marsan karaa gacmihiisa wuu ku marsan karaa marka alaabta markaa marsato wajigaaga waxaa u daynaysaa muddo 30 daqiiqo ah markaa u daysa alaabtan wajigaaga oo dareentid inay angageen qalaf oo kale ay kugu noqdeen waa iska dhaqaysaa markaa iska dhaqdo markaa wajigaaga ka dhaqato oo nadiifto biyo yaroo qandac ayaa isaga dhaqaysaa wajiga insha Allah subax iyo habeen laba waqti aad isticmaalaysaa maalinkii qofka awoodina maalintii hal waqti uu isticmaali karaa xitaa kaliya hal qof hadaa tahay waxaa samaysan kartaa halka xabo baradhada xoogo hal mar way ka badan tahay laba mar oo kale la marsan karaa ama laba qof aa marsan karaan marka inaad kis subaxdii marsato oo firinjeerka gashato kista kale oo habeenkii aad dhacus ku siiso waxaan ku iri isbuuc 7 maalin hadaa arrimahaas isticmaasho adiga kii nabar ahaa waa isdayseen waji mugdi waa isdayseen waji bicbic oo dhala ah oo daaman kuuskuus maasha Allah kaala iska arag ah ayuu noqonayaa wajigaaga shaki kuma jira baradhadan iyo waxaana shaki ku jirin baradhadan iyo caano boorahan inay wajigaaga ka dhigayaan waji bicbic inay ka dhigayaan wajigaaga soft inay ka dhigayaan wajigaaga waji cad inay ka dhigayaan wajigaaga waji madow dadka wajigooda nabraha ka soo baxay ee ka baaba'ay ee meelaha madmadowga ku haray ayaga lagama sheekeyn karo bahashan sidii anfaceyso kuwa nabraha ku yaal ayagana sidoo kale insha Allah waxaa kaloo ka daran cadaanta ee wajigaaga siinayso alaabtan waa alaab la isku hubo hal helo dadkii ka faa'iideysan lahaa
alaabtan hala tijaabi alaabtan yaa la fududeysan alaabtan alaab caadi maaha ana idinka hubo insha Allah oo soo tijaabiyay haddaad wax ku faa'iido ama aad ka hesho la sheergaray asxaabtaada la wadaag kaligaa ha qarsanin oo bakhil ha noqon saanba idinkula sheergaray insha Allah waana ku mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh